بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة وحا أي كهذا الشاهران دي كل شيء حتى موضوع مالين تاجن دولة ما تجرتها أسسkeedu wuxuu ka yimi carta. waxaan aad u xusuustaa oo taariikhda ku qoran maalin uu ooyey Ismaaciil Cumar Geelle oo aanu bereneriga ku jiray. wuxuu yidhi shirku cadow dabadeed buu leeyahay mid gudahana waa leeyahay. walaalayaalo gogosha aan idiin dhigay wax kala soo baxa oo ka soo saara. anigu waxaan ka mid ahaa dadkii waxaan ka mid ahaa ninkii ugu horreeyay hankar istaraaka dhigay. markaa qoobay qaadaba ninka warhayay baan ahaa shirka. waxbaa ka soo baxay. wixii ka soo baxay waxay noqdeen madaxweyne oo Cabdilqaasim iyo Cali Khaliif Galayd oo ah ra'iisul wasaare. laba arrimood baa dowladda la kulantay. Cabdilqaasim oo Turkii aanay isbarbar taagin iyo Cali Khaliif oo New York ku maqan oo shaqo ku maqan oo la riday. ilaahay wuxuu qadaray inay imbigaati ay ka dambayso oo kadeed iyo karaamad darraba ay Soomaali ku dhacday. wali qodobka intaasaan ku dhaafaya. Shariif Sheekh Axmed wali anigu dulqaadna waan ku yaqiin. ولا يستكنا شنو وكويقي. نصيبنا والها. إتي مدحوينها أها dhibaatada uu ka soo maray kursiga anu baqarnay. cid kale wuxuu geysatay bajirina nimanka Puntland la yiraahdo iyo ninkii prime ministerka ahaa Cabdiweli uu ka shaqayn karo waayay. waxaa kaloo ligliga haystay Shariif Sakiin. waxaa kaloo ligliga haystay annaga ku keenay oo habar gadir kaaga eexanay oo madaxweyne ka dhignay. walow ninkaasi dhibaatada uu soo maray intuu kursiga ku jiray anigu aad baan u garanaya. dulqaadkeedu ayuu lahaa. kolkii waqtigii dhammaaday selectionkii la galay been idin sheegi maayo ninkaasi xildhibaanada ma faragelin. qoladii guddiga hay'adda electionka ahayd waatay Axmed Ducaale Geelle Xaaf qabsadeen. waatii ay qabsadeen Cabdiqaadir Cali Cumar. waatay qabsadeen Xaaraan Kunraax. waatay qabsadeen Xasan Macallin. allayne markaas unbuu dhaqaaqay. de anooba la yaababa oo la wardi waxaan socda muxuu ninkani uga aamusan yahay isagaa head of stateski ahaa.
malaa tobaneeyo qofoo dee aan maxkamadii xukumine guddi election yiri kama qayb qaadan karaan soo gelista baarlamaanka alheele markaasuu yidhi dee waad gardarantihiin ninkaa dhibaatada soo martay uu u dulqaatay iyobaa isu kay qaban waayey maalintii dhowey ereyga aan idhi nasiib buu lahaa ilaahay baan geen kismaayo ilaahaana waa inuu u xamdi naqaa salaata shukrina waa inuu tukadaa meel halaaga oo bela ah oo dhii ku daatay oo dadkii reer Kismaayo qaxeen oo wax allaale iyo wixii meeshaa ka soo baxay xaqdarro ahaayeen oo 3 madaxweyne leh oo haddii allaba kuu rooyahay 2 gobol oo iska dhami ay ka maqan tahay waa Garbahaare iyo Bu'aale wax uu ka doonaa ma jirin hal qodob oday baan ahayo nabad baa sida أوروريو أنا وحن قبائل نصير لها تاريخ ذا شيء جديد إلهي ما كفاية وحفريا إنانو حبان السعود وإلهي قلبي سطع على عظيم فريا قضب كان انتاس أيام كدافية عالداتي دبدودا لا قبتا قفك قوله ee maanta Soomaali dulman waa aniga لا بأس إن الله مع الصابرين وأستعين بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين سلاتي بسبر لقه الرئيسي مواطن باناي Soomaali baanahay aqoon baan leeyahay way aragnimo leeyahay banaanka jooga waxa la qaybsanaya waa dhaxal waa qabiil ma yabalir amrakum ila Allah sida ay tahay dawlad baan rabaa قولوا أنا إما دقضو كتاب كقبيل كإنتان دوبي بان قوبي هذا مالكم الطورين وان قوبي وها عن قبيل ككب دورتي تولد نو صاحب الله أفرت بين الجهي كالدات سيئين قف أنا صاحبنا هيوانا الحرمك وقبيلي مجرته دولة برا وحلاية دولة دمشي لقا كيني بان قرانيا أحمد دعالة اللي حافنا وقرانيا رك فربضان وعرتد شوقينا وقرانيا sidii la isugu jabiyay dadka way garanayaan yaan dib loo noqon midka aan ka digayaa waxa weeye war yaan dib loo noqon muddada yare u hadhay dowladdan waxbaanu ka rabnaa waxaan nagaga maqan inay noo soo bandhigto waxaanu ka rabnaa doorasho waxaanu ka rabnaa cadaalad waxaanu ka rabnaa akhlaaqiyaad waxaanu ka rabnaa qiyam waxaanu ka rabnaa kuraastii baad ku fadhidaane war waxa cali daacun ku qaylinayo
idinkoo kuraastii ku fadhiya dee ku dadaala guntiga marada ku xirta wax kale idinkama rabno. Soomaalidu waa oral society. Sheekh Shariif bay igu xantaan, haddana intay iga dulqaadaan bay farmaajo igu xantaan, haddana intay iga dulqaadaan bay khayre igu xantaan, haddana markay iga dulqaadaan bay dowlada igu xantaan. waa mid dambi, waa igu dambaabayaan. aakhiradooda ayay igu seegayaan. wax aan ku qabaa male. war dal baan rabaa iyo dowlad, war cis iyo sharaf iyo karaamad baan rabaa, war say Soomaali ahaan jirtay baan rabaa, war kuwiina lacagta haysto, war kuwiina xukunka haysto, war waxaanaan u qaylinayo idinkaa u baahan. ninka lacagta haysto wadaa nabadda u baahan, ninka lacagta haysto wadaa dowladda u baahan, ninka kursiga ku fadhiyo wadaa kursiga u baahan. adaan u baahan, adaa u baahan, idinkaa u baahan, idinkaa u baahan. bannaan cidlaa baa joogaa. yaa dowlad doonaya baan leeyahay. alxaqiiqa insha allahu tacaala waan helayaa. ilaahu qalbigayga ii qaad. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. dowlad caadil ah oo xaq ah ilaahu na sii.